xafladan oo si heer sare loo soo qaban qaabiyay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Muudey iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. xafladan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. xafladan ayaa waxa loo dhigay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Jawaari. ugu horreyn waxa xaflada daafuray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Mahad Cabdulla Cawad. waxaan u soconaa safar dheer baan u soconaa walaasheen Labruma waxay tiri hore loo soconaya marka hore noo wada soconaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo intii waa mahadsan tahay. hadda waxa weeye waxaanu ku jirnaa boogadhayis inaynu iswada cafino. walaalkeen maanta wuxuu noo sheegay in uu dhammaanteedna cafiyey idinkana wuxuu idinka dalbaday inaad cafisaan. horta ma cafiseen? kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Muudey ayaa isna goobta ka hadlay. mudane madaxweyne dhammaan qof kasta oo inta jooga mansabka iyo magaca uu ku joogo ay ku salaaman yahay. aniga waxoogaa waa liga fahma badan yahay qof dad uma sheegi karo. mudane madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaynaa xafladan sharafta leh qiimaha leh oo aan caawa horeyba u arag oo aad ugu talagashay gudoomiyaheenii hore Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. gabagabadii waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ka hadlay qodobo badan oo ay ka mid yihiin amniga dalka iyo sidoo kale in laga xoreeyo al-shabaab Soomaaliya sida darteedna ciidanka la siiyo mushaaraad ku filan. madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday waqtigii ra'iisul wasaaraha dalka uu ka ahaa qaabka uu isku casilay taasoo uu ku soo beegayo xilli maanta uu sabootinayo Mudane Jawaari oo baarlamaanka horgeeyay xilkii uu hayay baarlamaanka Soomaaliya ay u dhiibteen. halkeen Jawaari inaan halkan hortiisa ka cadeeno waxa la wixii hore u dhacay sidii hore loo sheegay inaan safinay welina uu baarlamaankii midaysan yahay oo wax khilaaf ah uusan jirin. saddexdii usbuuc aan deganaa wasaaradda gaashaandhigga inaan soo arkay ciidan diyaarsan oo niyad wanaagsan oo doonaya iyagoo duruuf adag haysta inay dhintaan laakiin maamul xumo ku dhacday. insha Allah maamul xumadaasna waa ka saxinaa waxa la wixii daryeel ah ay mudan yihiin waa siin doonaa insha Allah. hawlgalladana dib bay u bilaaban doonaan magaceena iyo sharafkeennii ka ilaaliyay ceebta. waxaan aaminsanahay tanaasulkaas uu sameeyay oo innaba hayraatay wax shuruudoosan ku xiran inuu Ilaahay ugu bedelayo sumcad iyo sharaf iyo magac. maxaa yeelay anaa soo maray iyadoo dadku ay leeyihiin bas dee ku tagaysaa ummadoo dhan baa ku rabta. ilaahay dib u aragtaan wuxuu igu bedelay marka ilaahay waa qafuur raxiim awoodiisu wax limida ma laha. waxaan aaminsanahay inuu markay ugu saaran tahay naxariista Ilaahay ka helayo badbaadada baarlamaankan iyo shacabka Soomaaliyeed ka ilaaliyay foolxumada iyo magac xumada. xafladan ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi deganaansho iyadoo ay ka muuqatay xildhibaanadii kala qaybsanaa muddooyinkii ugu dambeeyay ay hadda salaan iyo galgacal iyo dhoola cadeyn ay isla dhaxmarayaan. gudoomiye Jawaari ayaan isagu farxad badan ka muuqanin oo ah shakhsiga loo qabtay xafladan. محمد عبد عثمان محمد فراديره ستار تي في مقالة مقدشو.